السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري بعد أصحاب قالقة ومركلي مقال كله عسبياني ولاش نسودها سلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قصدا waxay ka dhacday 1993 dalkaasi Urdun magaalo la yiraahdo Sald magaaladaas Sald waxa ku noolaan jiray wiil dhalinyaro magaciisa waxa la oran jiray Saacdi xilliguu marayay dugsiga dhexe markuu intuu ka baxay uu dugsiga sare gali rabay wuxuu go'aansaday inuu iskaga baxo iskuulka oo wuxuu ka codsaday waalidkii inuu barto farsamada gacanta oo uu shaqaysto wuxuu mar rabaa inuu dugsi sare iyo jaamacadii waxa aan sii daba socdo يعني xilliga qisada ay soo dhamaanaysa dhamaadkeedii baa 93 ah laakiin bilowgeedu waa waqti hore weeyaan yani waqti baan dib u noqonaynaa si aynu si wanaagsan ugu fahamno wiilkii markay arkeen waalidkii sida uu u danaynayo inuu farsamada gacanta barto waxbarasho uuna rabin waxa la yiraahdaa ala raaxatak marka iska baro farsamadaada gacanta farsamo gacan baan baranayaa buri waxa uu isku dayay wax kale ugu dambeyn wuxuu bartay sida guryaha loo qurxiyo guryaha marka la rinjeynayo mesela guryaha marka inta la rinjeeyo la dhameystiro guriga markuu cusub yahay jikada iyo waxba lagu sameeyaa Soomaha safiitadii waxba lagu dhajiyaa chips iyo si loo sameeyay iyo waxyaalahaas adigu faryaamo maal dhaha dadkaas oo kale jikada alaabaheeda iyo khaanadaheeda iyo waxaas faryaamahaas u bartay wiilkii farsamadaas gacanta ku shaqaysan jiray muddo markuu shaqaysanayo wiilkii oo si fiican farsamadii gacanta u bartay oo nin fiican oo lacag soo saaray uu noqday aabihi hooyadii lacag fiican ay u ururiyeen oo 20 jir yahay baa waxa lagu yiri marka waan ku guurinaynaa had wad weynaatay 20 jir baa tahay gabadh baan ku doonaynaa wuxuu waayay lacagna waan ku aruurinay lacag xaflad lagu qabto gabadha meherkeeda wax kasta lacag fiican ma ku haynaa lagu guuriyo way hebel hal ii guuriyo gabadh la yiraahdo Firiyaal oo adeerkii u dhalay baa loo doonay waxa la yiri gabadhaas adeerka baa lagu doonay wuxuu rahay gabadhii sidoo kale markii loo tagay aabaheed iyadii hooyadeedii aabaheed reerka dhan way aqbaleen oo Saacdi waxa la wiil wanaagsan oo karti badan oo shaqaysto gacmihiisa wax walba kula soo baxay reerkiisa ku filan gabadha Saacdi guursatay waa gabadh nasiib badan bayaaba heli karaya wiilkii gabadhii baa la isku daray wiilkii gabadhii marka la isku daray de waxa ka dhex dhalatay arintii la oran jiray jacaylka dhabta wuxuu yimaadaa guriga gadaashiis gabadhii wiilku ismay jecleen markii hore yani dad qaraabaha marmarun is arkay haayeen oo waa ilmaadeer oo isgaranayaan markay laakiin sidaas isu guursadeen bay Ilaahay intuu isfahamsiiyay si wanaagsan isu fahmeen jacayl aan caadi ahayn baa dhaxmaray muddo sanad bar markay reer leeyihiin waxa uu dhashay ilmahoodii koobaad oo ah gabadh bay ku corteen gabadhoodii yartayd waxa loo bixiyay Faatin marka Saa'id ba labada waalid u jeclaan wiilku iyo gabadhu marka wiilka gabadhu wuxuu ka weynaa 2 sano gabadhu way yar 18 jir bahayd wiilkuna 20 jir sanad bar marka reer leeyihiin marka waxa uu dhashay ilmahoodii curad oo gabadha wax loo bixiyay Faatin cunugtii yartayd marka hooyaduna way jeceshahay oo daway kulkulisa aabihii Saacdi ahaana si wuxuu u jeclaaday xadka ka baxsan cunugtii yartayd wuxuu oran jiray hadaan biil la iga rabin oo yani mas'uuliyad ayna saarnayn oo aaba ahayn ma shaqo tageen guriga iridkiisana ma gaadheen Faatin baan hayn lahaa oo la ciyaari lahaa markaas cunugtii yartahay ayadoo yar ilmuhu markay meelahaas fadhi baradka meelaha markay yihiin markay gurguuranayaan oo kala midalan albaabku markuu saas u soo garaaco waqtigu aabaheed iman jiray way garanaysaa bay halkaas ka soo qaylini markaasuu maanta dhan de inta la seexinayo haduu xataa yimaado iyadoo hurdo waa inuu toosiyo inay hurdo iyo inuu maqan yahay ma ahana inta kale oo dhan isaga haynayo ciyaarsiinay hooyadeed inaaska inay siinaysa maxay shaqo kuma darsan jirin Saa'id buu Saacdi cunugtiisa yartaa oo u jeclaa hay qisadii aaway marka waa kana wax walba uu hagaagsan yahay waa okay wanaagu waxay yiraahdaan carabtu iyo macaanku ma waaro marka gabadhii yareed ay tahay sanad iyo badh oo aabaheed say u jeceshay aabaheed sidoo u jecel yahay la yaabo reerku deysay isku faraxsan yihiin wax walba oo dhag u yahay habeenada kamid xilli galab xilligii wiilkii uu iman jiray aha Saacdi uu iman waayay gabadhii way sugtay qadasii diyaari wax kasta diyaari cunugtii yareed maanta dhan sidaas albaabka qofkii soo garaacdo ha u fiirso wiilkii uu iman waayay Saacdi marka maadaama uu wiil yar oo dhalinyaro ah oo shaqaysto furfuran oo lacag haysto firiido isku filan reerkooda la mudugina kaligii baa meel deganaa wiilkii uu iman waayay markuu iman waayay gabadha cunugteedii yartayd bay qaadatay gurigoodii bay aaday Saacdi iyo gurigii adeerkeed Abu Saacdi iyo hooyadii reerkoodii ba tagto xataa Saacdi ma joogo xaguu aaday waa goormadee xilliga sheekadu soo dhamaanaysa 93 waa 93 23 sano ka hor telefoon lama wato waxa de telefoon mobile la wataa ma jirto waxa la iska sugaynaa xaguu wiilku u shaqo tagi jiray marka meesha uu u shaqo tago waa xagee magaaladiisa Sald intuu ka shaqo tago wuxuu u shaqo tagi jiray Acmaan oo de subaxii basaskaas muwaasalaadkaas jidka socdo oo si raac waxa laga yaabaa inuu bas waayay waxa dhici karta qof uu shaqeynay inuu ama isku dhaceen ama wax uu ka halaabay waxa dhici karta shaqo iyo wax uu qabtay inuu qofkii intuu ku qancin waay uu yiri mesela sanad wax iigu hagaajisay iga bedel
oo si kale iigu bedel wax yacni qofku markuu maqan yahay cudurdaarkiisuna wuu la jiraa markuu yimaado unbuu inoo sharxi karaa wuxuu ku maqnahay iska seexo gurigaagii iska tago shaydaanka iska naar bal ilaa iyo berri baa laga warsugayaa wiilkii habeenkii oo dhan gabadhii waxay walwalsanaatay reerkoodii ka walwalsanaadaanba sidiiba waagi ku baryay subaxii waagi markuu baryay wiilkiina lala yahay baa la dhawaana saldhiga booliska tagno ونحن وحنا جمع قوي هرت ماشي وكشقين شري ضد بولا شقين شري قليا أو أها اسكو حرنا جروب مثلا سيدا الشركة أهانا أيولا شقيسين شري وقف مركو باهين جروجي سلا قرحية كلا شركة داس وتجي ياكد من الدقف على صور راعيني يا عم الله بو ضد كاس الراعيني وكم إذا حامر كسعدي وحال روحان إذا ويدين إن ننكي سعدها وحير هذا قليه سعد الشلايبة شقدي سما بيمانين gabadhii waxa lagu soo noqday hayd Firyaalo waxa la yiri goor ma Sacdi kuugu dambeysay waxay tir shalay subaxii buu iga kalahay xilligii uu bixi jiray xilli hore uu gurigiisa ka bixi jiray marka xilli hore uu baxay dawii maca salaameeyay markuu sii baxayna wuxuu igu yiri ka taxadar faatin adan kuugu ogahay marka hadalkaas markuu yiri waxay xogaa waan la yarayaabay markuu baxay yani soo dhool cadeynay maca salaam baan soo jirnay uu bixi jiray laakiin faatin adan kuugu ogahay ka taxadar weligii inuu oran waxay hadalkaas aan xogaa la yarayaabay wax kale oo la yaaba ama qariiba ma arkin markii la ogaaday shalayba inuu wiilkii shaqo tagin oo shalay oo dhan maqnaa shaqadiisii xataa ka maqnaa waxa layna maqnaa booliska u tagay reerkii waxay dhahdeen qof baa naga maqan qofku waa qof weyn waa inuu maqnaado 48 saacadood maxay waxa la yiri horta 24 saac uu maqan yahayba shalay xilligan oo kale ka sii hor baa dadka ugu dambeysay iyagoo booliska si fiican oo waliid arrintii serious ah inuu qaadanin oo leeyahay suuga horta bal ugu yaraan 30 saacadood iyo meelahaas 48 saac ka soo wareegtada ay ku hayaan baa dad baa waxay soo waceen laamihii amniga booliskii waxa la yiri nin meeyda baan meel ku aragnay inta magaalada Ammaan iyo Salda u dhaxaysa meel bridge ah oo labadan magaalo inta u dhaxaysa oo la maro bridge-kaas hoostiisa bridge-kana biyo mara waa meel biyo mareen ah bridge-kaas hoostiisa waxaan ku aragnay baa la yiri meed marka sababta meeshu waa biyo mareen meedkan biyuhu ay u qaadi waayeen qofku wuxuu u egyahay sida qof meel sare sida qof bridge-ka laga soo tuuray kale mesela marka wuxuu ku dhagay mariyihiisa waxay qabsadeen meel saas darteed buu meel ku calaqay oo saas u haystaa laamihi amnigu si degdeg meeshii ku tageen qofkii meedka bay soo qaadeen saldhigii booliska la keenay waxa la yiri qofkii la raadinayay buu qofkani u eegay dadkii wiil baa naga maqan lahaa ay sheegayeen reerkoodii baa la wargeliyay marka ninkii ha Sacdi reerkii waxay yimaadeen meeshii meedka lagu hayay saas markay arkeen way aqoonsadeen waxa yiri wiilkiina yaa dilay baad u maleynaysaan yani yaa meesha ka tuuray meeshu meel la lugayo qof lugaynayo uu mara ma aha oo meedku yaala waa qof mesela marka meeshaas oo kale meed lagu arko waxa la garanayaa in bridge-ka laga soo tuuray qofka kor yani boondada in laga soo tuuray waxa la yiri wiilkan waxa wiil miskiina wanaagsan shaqaysta cidna uma shaqeyn jirin cid lacag kuma lahayn cid lacag kuma yeelato xoogiisa ku shaqaysta qof muruq maalada subaxii intuu soo kaco ayr shaqo tago xumaanta soo shaqaystan reerkiisa u keenayo yani cidna ayna ku daba dhiganayn buu ma garanin cidda shay dadkii uu shaqeynay iyo kuwii la shaqeyn jiray wixii oo dhan ba su'aal la weydiiyay qof kasta wuxuu dhadan wiilkaas wuxuu ahaa wiil wanaagsan hadii la dilay ma garanayo qof dilay waxa lagu soo noqday xaaskiisii waxa la Faatin haye waxa leeyahay Firyaal Faatin waa cunugtiisa yarta Firyaal haye odaygaagii yaa dilay bad u malaynaysaa bal wax uun deedo odaygaagii yahay bal wax uun sheeg wax aan sheego waxa tiraan ma garanayo muddo waxay reer leeyihiin markaa 3 sano reer leenahay 3 sano reer lahaayeen ba xataa lagu sameeyay baadhitaan bal qoyskan ama iyagoo iskhilaafsan ama gabadhan oo dudayso guriga ehelkeeda aaday ama gabadhan oo ninkan ka cabanayso wax uun in la arko weligood iyo allahood biyo kala cabanay lama arag indhahoodii iska jeclaayeen bas zaid bay isku jeclaayeen waxa la marka cid shay lama garanayo laakiin waa in gabadhan Firyaal ilaahay ninka xaaskiisa ah bal dabagal lagu hayaa waxa laga yaabaa nin kale inay jeclaatay waxa laga yaabaa nin kale inuu iyada dilay oo xiriir kala dhaxeeyo nin kale oo iyada raba inuu isaga dilay oo xiriir kala dhaxeeyo waxa laga yaabaa yani gabadhan bal waa in dabagal lagu hayaa iyo dhaqdhaqaaqeeda gabadhii baa dhowr bilood dabagal dhaqdhaqaaqeeda lagu hayay gabadhii misla waxay u socotaa sida safety afkeedo kale maba leexataba saas mustaqiim bay ay tahay gabigeeduba meel ma aado ilmaheeda yarkii gurigeeda bas ay joogtaa gurigeeda haysataa nidaam bay ku toosan tahay gabadhii cidadii markay u dhamaatay asaydii wixii u dhamaadeen gurigii baa laga soo raray guriga ehelkeedii baa lagu soo celiyay ninkii wax dilay waa la garan waayay sidii baa lagu aasay kiiskii uu iska xidhmay dad majhuul buu noqday kiisaska la xalin waayay ee la iska daayay faraha laga qaaday muddo la joogay gabadhu waa gabadh yar oo iyadoo yaroo wuxuu ninkeedu ka dhintay 22 sano meelaha jirta iyadoo 18 jir guursatay 3 sano markay reer lahaayeen uu geeriyoodayba
waxayna ahayd gabadh qurux badan waa la soo doonan mar walba rag baa soo doonan jiray waxay tiraahdaa mar raba guur sacdi gadaashi inaan guursado waaba iga xaaraanba ragga dunida joogo dhan xaaraan bay iga yihiin soo odaygayga ma dhiman sidaan u joogan baan ku dhimanaana maya waad yar tahay gabadh yar baa tahay ciyaal kale aad u baahan tahay ma jirto waxay tiri ciyaalna ma rabo gabadheeda yar baan korsanayaa faatin nin kalena ma doonaya inaan guursado midda kale haddaan nin guursado ninkaasi faatin wuxuu u noqonayaa adeer yacni adeerka oo hooyada qaba waxaa laga yaabaa inuu dhibo waxaa laga yaabaa inuu dhibsado maya maba rabay tiri aniga gabadhayda bas saan isu agtaaganahay baan isku agaboobaynaa nina ma rabo qof kalena nolosheeda kuma soo darayo sodohdeed waxay ku tiri gabadh yartaa anaa qaadanayo haynayaba haddaad gabadhan yartaa yacni darteed guurka u diidaysid anaa haynaya hooyadeed waxay tiri anaa haynaya walaalaheed waxay dheheen anakaan haynayna waxay tiri may maano noolan dhimanin buu gabadheeda qof kale haynayaa lagama yaabana gabadheedana anaa haysanayo guurna ma rabo gabadhii dee sidaas afraha lagaga qaado wax la sameeyaa la garan waayo waa la iska daayay sidii loo soo doonan jiray dee gabadhii loo soo doonan jiray baa laga quustay qof kasta wuu soo doontaa way diidaa waa laga quustay faraha laga qaado khalaas sidaas baa la iskaga daayay gabadhii marka gabadheedii yareed ee faatin ahayd bay waxay u korisay si heer saraade waxay adduunka caqli iyo xoog iyo xoolo haysiba iskugu geysay ninkii dhintay ahaa sacdi aabihii baa wuxuu u qoray biil labadan gabdhood yidhi labadaas gabdhood anay biil igu leeyihiin gabadhan ah marka firyaal gurigoodii hoodeedii aabaheed bay joogtaa walaaladeed gabadha yartaa adeeradeed oo ah dumaashiyaasheed cid kasta waxbay siisaa odayga sodogeed ahna biil joogtuu meel u saaray wuxuu labadaa gabdhood biilkooda anay igu leeyihiin bas gabadhi waxay tiri marka gabadheeda yartay waxbarashadeeda ka shaqeynaya anu gabadheeda mar wax u akhridaa mar gabadheeda yar bay u heestaa mar timahay u hagaajisaa 12 maanta gabadha yar gabadhaas bay isu daba socdaan gabadhii si wax u baran jirtay caqli bay soo yeelatay gabadh weyn bay noqotay dugsi dhexe dhigata markay soo weynaatay gabadh caqli la noqotay mar walba waxay hooyadeed weydiin jirtay aabahay aaway yani inaan agoon ahay oo aabahay dhinto un baan ku soo weynaaday aabahay siduu u dhintay bal siduu u dhintay ii sharax bay ku tiri maalin waxay tiri aabaha wuu dhintay ilaahay oo naxariisto waa la dilay isagoo meeyda laga helay meel halkaas oo buunda agteeda markii meydka marka la soo helay dhaqaatiirta meydka baara ay baareen sacdi meydkiisa waxay yiraahdeen shay culus oo sida mesela sida bud oo kale sida wax bakoorad oo kale oo culus oo bir aan ahayn wax yani shay bakoorad ama bud wax saas oo geed oo aad u culus oo laakiin bir ahayn baa madaxa dhowr jeer lagaga dhuftay garbaha iyo dhabarkana waa lagaga dhuftay kadibna meeshan laga soo tuuray marka jugtii ku sii dhacday iyo soo tuuritaanka meesha laga soo tuuray isugu darmay saas darteed buu dhintay qof inuu dilay oo markii la dilay kadib hadana meesha laga soo tuuray way cadahay yaa ka soo tuuray waa la garan waayay gabadhi waxay tiri marka aabaha yaa dilay waa la garan waayay bitir hooyo aabaha qofkii dilay kiiskiisina wuxuu iska noqday kiis la xalin waayo faraha laga qaaday maya waxaan rabaa aabahay qofkii dilay inaan ogaado aabahay dadkii ula shaqeyn jiray aabahay dadkii wax uu ahaa aabahay dadkii ku dhadhawaa gabadhii yareed waxbay isku dayday inay raadiso maxay raadini wixii inta dhowr iyo 10 sano sii ahsan yahay aabaheed marka waxa way fahmay farahay sidii iskaga qaaday laakiin mar walba waxay oran jirtay markaan arko caruurta iskuulka oo aabahood iskuulka uu keenay said baan u qaraamaa gabdhahan isku fasalka nahay mid haday iskuulka timaado iyadoo xanaaqsan oo tiraado maanta aabahay baa igu qayli aabahay baa isoo dilay waxaan dhahayaa reed ani hadaan aaba lahaan lahaa aaba hadaan lahaan lahaa hal maalin intuu idilo uu hal maalin iskuulka i keen uu hal maalin igu qayli uu xataa dhiman lahaa yani waan ka samri lahaa iga nasiib badanaa dadka aabahood uu ku qaylqaylinayay aabahay baa isoo canaantay aabahay baa idilay dadka dhahay way iga nasiib badan yihiin markaas oo kale hooyadeed way ooydaa waxay dhigtay markaan hooyo aaba ku ana saaxiib ku ana walaal ku gabadhii had firyaal iyo gabadheedii waxay noqdeen saaxiibada laba qof oo nafta isu hura hooyo aabo iyo walaal iyo saaxiib iyo wax kasta isu noqdeen gabadhii way weynaatay dugsi sare ka baxday dugsiga sare markay ka baxaysay darajooyin heer sare ah bay kaga baxday waa gabadhii yarada ahayd Faatin darajooyin heer sare ah bay kaga baxday gabadhii waxay baratay marka jaamacad bay gashay jaamacad alaale kuliyadda ay rabto darajooyin waxay ku soo qalin jabisay kuliyadda ay rabto ay ku gali karto gabadhii kuliyadda iyadoo ay dooratay bay gashay sidoo kale 4 sano koowaad markay jaamacadda soo qaadatay bay sidoo kale waxay ku soo qalin jabisay darajooyin heer sare ah isla markiiba shaqo heshay safaaradaha wadanka degan oo wadamadaas kale ay leeyihiin yani safaaradaha wadamada kale ay leeyihiin wadanka degan safaarad kamida bay waxay ka heshay shaqo ammaan degan gabadhii marka waxay ku qasbanaatay maalin walba inay bas ka soo raacdo magaaladeedii Sald oo kadibna ay ammaan aado oo haddana bas sii raacdo subaxiina ay bas soo raacdo galabkiina ay bas sii raacdo safaaradaas ay ka shaqeyn jirtay waxay iskala shaqeyn jireen marka safaaradda 4 dhalinyaro ah gabadh iyo 3 wiil
way isku magaalo ka soo jeedaan isku magaalo yihiin isku bas ma soo raacaan marka inay isku tuulo ka soo jeedaan yani isku magaalo inay ka soo jeedaan bay is garanayaan marmar waa laga yaabaa sikadiisa inay bas ku kulmaan marmarna isku basba ma raacaan qof walba markuu doono shaqada ka taga qof walba markuu doono yimaada way kala horeeyaan way kala dambeeyaan laakiin way is garanayaan inay isku magaalo ka soo jeedaan afartan dhalinyarada isku magaalada ka soo jeeda marka mid waa Faatin waa laba wiil iyo gabadh kale iyo wiil la yiraahdo Khaliil waa saddex wiil iyo gabadh iyo Faatin shan weeyaan wiilkan la yiraahdo Khaliil marka wuxuu saaid uga helay gabadhan la yiraahdo Faatin marka waxay ahayd maadaama ay gabadh hooyadeed la tashataa hooyadeed la sheekaysataa hooyadeed la saaxiib ileen hooyadeed maanta way u caqliyeynaysaa way u caqli celinaysaa way waaninaysaa sida qof weyn bay u dhaqmi jirtay dhalinyaranimo iyo dhalinyaro inay meel u raacraacday iyo dhalinyaradu inay la sheekaysato يعني قف وحويان توصن إذا الزائد بيوتوصن تربيتي هو ده السيد أبي هيستا هادو قف وحويدي ويوجد جوابيسا قف إني وحويدي سلقة ما يابو هادو قف إسكودا إنه أم الله أما شيكا أفرا وح شقادة كبحسن أو موضوع شقادة كبحسن إن الله فرحتها ما أقول عنيسو ويلكن ليد هذا خليل أي سكون مقالة ده هين مركب قبرنا وشعل هذا سي وشعيل كيسي وشك تمقرني هادو إسأل له هذا الشيء هذا الكور دنو إسوق كوبيسا هادو إسكودا إنه لسي هذا الكلا أفرا وكتشتني سلام ما هذا الله يصبر wax shaqadaas ku saabsan hadii la weydiyo qofku iga jawaabaysa ama wax shaqada ka baxsan miya sida kaana wax dhagala bay u dhaqmaysaa waa tacliimaadka iyo dardaaranka ay hooyadeed soo siisay wiilka gabadhan uu ku korwareegi jiray gabadhan seen ugu sheegtaa inaan jeclahay gabadhan maxay tahay sida islaanta weyn u dhaqmaysa gabadhan sida dhalinyarada si ka duwan bay u dhaqmaysaa nimankana de gabadh haday la hadli weyda iyo gabadh dhulka oo saa u fiirinayso iyaga dhanba fiirinaynin iyo gabadh aan la hadlaynin iyo gabadh maxay ahayd hadalkiisa yasaysa iyo gabadh aan waxan uu sheegay ka hoos qaadinaynin markay arkaan khalaas wayba daba dhigtaanba ilaa gabadha inaan ka soo hadaliyo ma ahan ninkaasi amal iyo shaqo kale ma balihi buu leeyahay ilaa inaan gabadha ka hadliyo ila hadasho weeye shaqo kale ma bayaalanayo gabadhii uu sida isagoo ugu wareegay sida helicopterti ugu kor wareegaya ba waxa dhacday maalmaha kamid marmar safaaraddu waxay qaban jirtay xaflad مثلا casho oo kale dad ba cashiye wax loo sameeynaya waxyaabo munaasabaday qaban jireen munaasabadaha marka goormay qabataa galabkii iyo habeenkii iyo maalinka munaasabada ay jirtay xaflad maalinka ay jirto waa in la daaho marka la daahe xilli dambe xafladii ay dhamaato xilliga dambe bas ma socdo basasku galabkiiba istaaganay ugu dambeyn maqribkii gabadha marka waxa caqabad ku noqon jirtay mar alaala markii la yiraahdo xaflad baa la qabanayaa waxay ka sii fikri jirtay qofkii caaw guriga geyn lahaa ma dhihi karto amaan baan iska seexanaya hooyadeed intay wacdo hooyeen waan soo dhaxaya amaan baan caaw seexanaya ma dhihi karto mar alaala markay xaflad jirtay marka hooyadeed bay wacaysaa waxay leedahay ama adeeraday iyo wac ama mid abtiyaasha kamida iyo wac oo ii soo dir qof saacadu markay intaa tahay amaan hal iigu yimaado xilligaas ay xafladu dhamaanaysaa meesha shaqadeedii xafladi ka jirta hal ii yimaado hal ay soo qaado adeerkeed markuu soo doono ama مثلا abtigeed uu soo doono uu u yimaadaa uu soo qaadaa gurigoodu geeyo isaguna gurigiisu iska aada marka waxay dareemi jirtay waxoogaa inay dhibayso qofkan waalidka waa ama adeerkeed مثلا ama abtigeed laana qof maanta oo dhan shaqaynayay oo shaqo ku maqnaa hadana inuu safar soo galo uu amaan yimaado uu qof soo qaado hadana sii celiyo dhib ay ku tahay waxay oran jirtay marka mar walba insha Allah waxaan rajaynayaa inaan mar dhow aan gaari gato si dadkan aan u dhibin oo yaani dadkan inay dhib ku haysay gabadha dareemayso way ka xumayd marmar waxaa jira marka meelo dadkan ay maxay ahayd meelaha xafiisyada ka shaqeeya meelo yar oo cafeteria isugu tagaan shaah iyo wax ka cabaan oo isla safaaradda dhexdeeda meeshii iyagoo farfadhiyo iyadii gabadhii kale isku magaalada ahaayeen sheekaysanaya buu maqlay ninkii ahaa Khaliil oo isna meelahan ka agdhow meeshii shaah ku cabaya Faatin baa marka gabadha kale waxay weydiinaysay markay xafladu jirto xaflada iyo wax la qabanayeen daahno ani waxa caqabadi waasaan gurigeyga ku tagi lahaa iyo saldsaan ku tagi lahaa mar abtigay baa la ii wacaa mar adeerkay baa la ii wacaa yaani arinkaana waan dhibsanaya qof weyn oo maanta soo shaqeynaya xilligu nasan lahaa gurigiisa iska seexan lahaa inuu ani soo doono dhib bay ku tahay gaarina ma wato adu maxaad samaysaa bay ku tiri gabadhii waxay tiri markaan daahno xaflad iyo wax ay jiraan anu maba dheelmadaba oo magaaladeennii ma aado dad aan qaraabanahay oo magaaladan degan gurigooda tagaa qoyskaas gurigooda tagaayo gurigooda qoyskaasna iska seexdaa ani waxay tiri marka caqabad baa ay haysata waxa meeshii soo fadhiistay marka labadii wiil ee iyaguna isku magaalada ay ka soo jeedeen wiilashiba hadana weydiisay Faatina waxay tiri idinku maxaad samaysaan markaad daahdaan wiil wuxuu yiri mid saaxiibkay oo gaari labaan wacdaa oo halkan degan oo waxa la dhahdaa iqaado magaaladeedii igee marna wuu iqaaday magaaladeedii igeeya marna halkan aan iska seexdaa mid kale wuxuu yiri marna hotel baan seexdaa marna hadaan doono meelaha dadka qaraabada aan ahay magaalada degan ma ka raadsadaa meel aan seexdo iyo qof aan asxaab la ahay iyo
يعني qof walba wuxuu waan isdabaraayo magaaladan u baan seexdaa intooda badan wiil baa wuxuu yiri saaxiibkay marna ay qaadan marna gurigiisa igeeyo gurigiisa seexdaa waxay tiri marka aan caqabad baa ay haysataa sababtoo ah adeerkay baa isoo doona ama abtiyaashii adeeradeen yani inaan dhibo ma rabo ninkii Khaliil halkaas uu jaanis ka dhaxlay marka iyo fursad halkan uu ka soo boodo wuxuu yiri Allah anaa xal idin haya anaa xal ku haya Faatin ma dhihi karo marka Faatin uu ka cabsanaya wuxuu anaa xal idin haya dhalinyarada inta isku wada daray jamca anaa xalka de ugu fiican idin haya haye wuxuu yiri aniga aabahay ba taksiila ma ogtihiin aabahay baa wuxuu ku shaqeystaa buu gaarigiisa maalin walba marka jaamacada imanay aniga aabahay baa ikeena wuxuu ka shaqeeyaa aabahay camaan oo maxkamad buu ka shaqeeyaa marka wuxuu sameeyaa subaxii markuu soo socdo shaqada soo aadayo anigana ay soo qaada jaamacadu dhigaa isaguna shaqadiisu aada shaqadiisu marka isaga xilli hore duhur camal ay dhamaataa markuu sii hooyanayo marka uu intuu ka tago camaan uu magaaladiisii aadayo wax alaale wixii dad magaalada u socdo sii qaadayo kiruu ka qaataayo lacag buu ka qaataa yani marka maadaama aabahay uu gaarigiisa ku shaqeysto sida taxigii oo kale isagu ha ina soo wada qaado subaxii halkan jaamacada hay meeshan muxuu ahaa shaqada safaaradda ha ina keeno galabkii markaan rawaxaynana isagu ha ina sii qaado lacagtana ayr oo iskugu dardarayna bil ahaan bad ku siinaysiin labadii wiil waxay dhaheen mar hore inaad noo sheegtay ahayd mid kale aabaha haduu maxkamad ka shaqeeyo maxaa u geeyay hadana inuu taxi noqdo may wuxuu taxi lama gaarigiisu ku shaqeystaa yani markuu sii socdana wuxuu dad arko sii qaada lacag buu ka qaataa markuu soo socdana wuxuu dad arko soo qaada lacag buu ka qaataa ilaa kulliba wuu socdaa shidaal buu gubayaa Soomaa wixii sii socdana wuu sii qaada jaanis ba iskama beerdaray wixii soo socdana wuu soo qaada labadii wiil waxay dhaheen mar hore inaad hadashay ahayd niyo mar hore inaad noo sheegtay ahayd gabadhii kale Faatima intii kale weydiiyay Khaliilku ku yiri haye Hiblaahay adna raa'igaagu muxuu yahay Hiblaahay waxay tiri ani markaan magaaladan seexanayo qoyskaas aan qaraabadan ahayn gurigooda tago gabdho dhalinyaraha u joogo gabdhahaasi waxbaan iskala sheekaystaa mar rabay tiri anigu inaan idin ku soo biiro taxiga idin la raaco Faatin buu weydiiyay haye Faatin adna ilaa waxaan dhan wuxuu u sameeyay aabihi inuu taxiilaha u sheegay waa Faatin darteed Faatin adna Faatin waxay tiri anigu hooyadii baan la soo tashanaya yani ina lacagta bil ku bixino isa sii raacno isa soo raacno hadii la daaho iyo hadii walba wuxuu wiilkan aabahay uu idin sugi marka maalintii xaflad iyo munaasabad iyo wax jirto ee la daahaya yani markii la daaho wuu in sugi sababtoo aanu markaan daahayba aabahay uu isuga magaaladu iska joogaa meelaha kafeeyadu iska fadhiista meelaha sidoo wareegay markay xafladu ii soo dhamaato ii kaxeeya marka hadii la daaho iyo hadii la dhaqsado iyo hadii walba isaga ina sii qaaday oo ina soo qaadayo haye waxay tiri markaan ka soo fikiray hooyadii baan la soo tashan wala soo ruuxay gabadhi hooyadeed u timid waxay tiri nin aan isla shaqeyno oo la yiraahdo Khaliil aabihi oo maxkamad ka shaqeeyo oo gaarigiisana taxi uu yahay baa wuxuu aabahay hayna sii qaada hayna soo qaada lacagtana bil ku bixiyo aniga dhalinyarada oo dhanba ra'yigaagu muxuu yahay waa arrin fiican bay tiri soo dadkaad meesha iskala shaqeysaan idin ma raacayaan ha soo oday weyn wiilka aad isla shaqeysaan de aabihi soo ma aha soo raac bay tiri sii raaco lacagtana kula heshiyo bisha umbad ayr iska bixini gabadhi way soo noqotay subaxii dambe ninkii Khaliil haabay tiri waan ogolahay maanta laga bilaabo markii galabkii la rawaxayo aabaha ha inoo yimaado ha ina qaado lacagtana soo sheegday wixii uu rabo maya wuxuu yirmad waalantahay Faatin aabahay waa aabaha adii lacag laga ma rabo maya waxay tiri heshiis aan galno aan isku ogaano heshiis bishi markay dhamaato lacag aan bixi hadii kale ma rabo haye wuxuu raalaho lacag intaas aad bixinaysaan bishi adna inta bixi balo intaas adna intaas waa la isku dardar bishi markay dhamaato aan bixinayna haye sidiiba odaygii ku soo qaadi jiray dhalinyaradii maalinkii koobaad gaariga marka la raacay marka ninkii ahaa Khaliil waa de odayga taxiga wado aabihi Soomaa waa wiilkiisi waxa la rabay saddexdan dhalinyarada inay gadaal galaan Khaliil iyo Abu Khaliilna ay hor galaan ninka Khaliil ha wuxuu may wiilashan dhalinyarada mid kamid hor ha galo gabadhana geeskaas ha marto anna dhaxan fadhiisanaya dhaxdan wiilka kalena geeskaas ha fadhiisto wuxuu rabaa marka gabadha iyo wiilashan inay isu dhawaaneen ama midalan ayna gabadha meesha lagu ciriiriyeen ama waxa soo diiday in gabadhu laba nin gadaal la marto oo isugu ku jirin gabadha geeskaas fadhiisanaysa anaa ku xigay adna hebel halkan fadhiisanaysa daaqada gabadhana daaqada anna wuxuu dhaxda fadhiisanaya haye ninkan kalena hor ha galo gabadha marka waxay fadhiisatay geeska bidixda duqa darawalka meesha ku aadan oo yaani duqa kursigiisa dhabarkiisa oo kala ay fadhiisatay isaguna meesha ku xigta qofkii kalena geeska kale midigta u maray sidaas uu gaariga ku socday ninkii gaariga waday markay ahaa Abu Khaliil wuxuu dareemay wiilkiisu gabadhan inuu jecel yahay sida uu fiirinayo kolba wuxuu isdhihi la hadal su'aalo iyo waxba weydiin waxa laga yaabaa midalan shan ka hadal oo kale intuu weydiiyay hal uu jawaabay siinaysa bas way ka aamusaysaa
maantana wuxuu isku dayaa inuu la hadlo kolba wuu fiirin odaygu wuu dareemay marka wiilku inuu gabadha rabo laakiin gabadhu dee waa gabadh fiican oo akhlaaq iyo edeb loo nin lala hadlayo iyo waxaas ma rabta iyadu markaas odaygu wuxuu bilaabay marka inuu wiilkiisa amaano wiilkaygu markuu yaraa sidan uu ahaa fariid buu ahaa uu dabeecad fiicnaa waxbarashada ugu fiicnaa wuu fahmad badna dhalinyaradii baa qosqoslaa isagii wax khajilsan buu iska dhigaa maantana inta jidka lasii socday inta lasoo socday wiilkiisu amaana marka uu ka sheekeeyaa say sheekadii sidii ugu socotay wiilkay gabadhii isku taksi loo raacayay iyo wiilashii kale dhowr bilood markii taksiga la isla raacayay وأبيه وحكول وان كوجة قبل إنها تربتدي نين رجع أنت إسكتكتد قبل واحد كتر هذا وان كربا وحلو وحن كعب سنة يا وقبل وان شعله أنت أقول هذا وان كربا أو يحنا قضاء إني تكسي جندي دو هذا مركان الله لين صباح الخير هذا صباح النور بيد هذا حتى إني صلاة إيقاعد وإذا كبقيا وان كعب سنة يا ما يوحلو واحد كتر هذا أنا وحنا يقف ونكسل جوربا كهربا شيء كذا دم بواحد قبل وذا وان كصاد وانا يا كورن قبل وشيء كذا بقى هذا كعب سنة إنك أحنا قضاء wuxuu yiri waayahay wuxuu isa soo tirtirsiyo isa soo geesi iska soo dhigdhigaba maalinkii dambe wuxuu ku yiri Faatin ha salaam alaykum saatahay waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo hay weydii haddaan ku soo doonto may aqbalaysaa gabadhii way yaabtay haye doonasho maxaya wuxuu yiri waxaan qof wanaagsan wanaag baan doonayaa wanaag mahna wax kale niyadeyda kuma jiro waxaan rabaa inaan ku soo doontay may aqbalaysaa waxay tiri in la isa soo doonto horta waxa ka horeysa sheeko iyo in wax la isku fahmay aduu dib malay tiri bal aan ka soo fikiri doona insha Allah cabaar bay iska joogtay marka maalin kasta xisloon may ku jawaabtay yaa rabbi may ku jawaabto maalin kale hadana u yimid wuxuu Faatin wali waan ku sugay jawaab baan ka sugay jawaab ma diga sugaysi ha insha Allah ana ku soo jawaabi doona mar labaadkii markay aragtay qofkan xaaladan iyo hadalkan iyo waxan uu sheegay inay dhab ka tahay bay hooyadeed u tagtay Faatin waxay tiri wiil dhalinyaro oo sidaas oo taksiilaha wiilkiisii baa raba oo isku meel ka shaqeyno oo si fiican aan u garanay si fiican bay labadan qof isu garanay hal meel bay ka wada shaqeeyaan يا وحربا إنه يقول سده هو رأيك أقوم حوي هاي waxay tiri de wiilku yaadu fiican yahay wiil wanaagsan yahay dhalinyaro ah wax bartay ku fahmaya isku waxbaad soo barteen isku meel baad ka shaqeysaan guurso hadaad rabtid ma jeceshahay ma waxay tiri anigu ma jeceli laakiin jacayl iyo maala yacnigaasba kama wax helay tiri anigu qof macquul ah munaasib u leeyahay ee ka waran bal adi dooqa ra'yigaaga hooyadii waxay tiri waa sax ha ku soo doontaan waa isbaranaynaa markaan isbarano wiilka iyo aabihii iyo reerkooda cid yihiin baan soo ogaanina haday macquul noqdaan de markaas lagu siinayaa waxaad ku tirada waan ogolahay isoo doonashadii koobaad oo barasho ama doonashadii Farantiga la isu galinay Faatin marka ma rabto talaabo hooyadeed aynu ogeyn inay qaado wax kasta hooyadeed bay kala tashataa hooyadeedna waxba kama qariso gabadhii waxay tiri soo doonashadii barashada aabihii wuu farxay isageena wuu farxay adeeradii iyo waxba soo raacay abtiyaashii waa la yimiday waxa la yiraahdaa hebel baan la yiraahdaa halkaas aan deganahay qabiilatu hebel baan ka soo jeednaa waxaan rabnaa gabadhan waxa la yiraahdaa soo dhawaada anaga hebel baan waan isbaranaynaa waa la isbartay isbarasho kadib balan baa la qabsaday marka intaas soo bari in la isku barto kadibna la soo doonto gabadha waa la soo doontay soo doonashadii rasmiga ahayd gabadhii wiilkii Farantiga waxba la isu galiyay xaflad baa loo qabtay khalaas wiilkii de waxay u ahayd maalinka uu gabadha si rasmi intuu u soo doontay Farantiga loogu galiyay maalinkii dunida ugu farxada badnayd ولا يصير على صبحي قلب كنا ولا يصير راعة هذا مركز عاد وقبل ولا شيء كيسان كرا بريق هو وقعب سنتري وحس لا قبل هذا الله شو ورك كوبد بدي يصير أرمي قبل جاك وكل حد لويدا مركب ولاحظ لا سؤال ويديا وحش قذا كبحسن وحربوك الله الله ويجاوبتها حلي قال نصني وكل ميل بالا فريستا شاحي وحبال يسلعبه ولا يسلا شيء كيستا قبل دويلك وجعل هي سجعيل ما ده كرده حد كبحسن ولا صو تجامر كتاكسي la soo raacay la soo hooyanayay odaguna jidku ugu soo sheekaya gabadheedii waxa tahay gabadh wanaagsan wiilkeyguna waa wiil wanaagsan awlaadiina arki doona mar dhow insha Allah arooskiina dhici doona aroos noocaas la idin qaban doona odaygan marka gaarigiisa inuu taksi ka dhigo dadka ku sii qaado isagoon baa iska raba ma ahane waa nin dhan oo maxkamad ka shaqeeyo lacag uu haystaa ma aha qof oo macnaha u baahan inuu gaariga taksi ka dhigo ee wuxuu sirin hadaad sii socoto soo socdo dadka sii qaad lacagna ka qaado wadadana iska dadkana siiba u heshaba waa fikrad fiican baruntii marka suuxu oran jiray aroos weyn baan idin dhigayaa oo khatara oo gabadhii odagii si fiican bay isu barteen gabadhii wiilkii way is barteen gabadhii aamusnidii is ilaalintii wixii way ka soo baxday way la sheekaysataa marka odagii wiilkii caadi bay ula sheekaysataa maalin maalmaha kamida ayadoo meel jid ala soo marayo markaas inta magaaladii laga soo baxay amaan loo soo socdo magaaladoodii amaan in yar la soo dhaafay aan magaaladii ay u socdeen loo soo dhaweynba umbu odaygu wuxuu yiri wallahi billahi aniga wiilkaygu iga degan yahay oo iga caaqilsan yahay oo wiilkaygu waa wiil agaalade
wiilka labisan ee suudka iyo taayga xidhan ee boorsooyinka wata ee safaaradda ka shaqaynaya muxtaramka anigu wuxuu markaan isaga leeg asaas ma ahayn waxaan ahaa waaxid rabshoolo oo gabigiisuba mushkilad iyo qaxar ka samaysan oo raaci mashaakila oo qofkii saas iila hadalana saas madaxaan ku dhufan jiray oo dadka hadda feer baan saa ugu daldali jiray oo intaasoo qof baan ilka riday oo intaasoo qof baan ilka ka daadiyey oo qofkii saas iisoo agmaraba wadnahan ka laagi jiray oo waan dagaal badnaayo maxay baan ahaayo sidan balaayo akhriyay yacni dagaal 24 saac oo macallimiintan la dagaali jiray markas yacni markuu shaqada bilaabay xataa dadku la shaqeeyo la dagaali jiray markii dambe de waan weynaaday oo qof weyn baan noqday waan degay laakiin hadda markaan arko wiilkayga siduu u degan yahay iyo siduu u ixtiraam badan yahay qof akhlaaq u yahay anu markaan isaga la ekaa يعني waxaan dhahay alxamdulillah ilaahay wiilkayga adaan iraacinin hadduu iraaci lahaa mar hore wuxuu yiri 15 meelood oo shaqo laga soo eri lahaa haye maxaad sameyn jirtay dhalinyaradii marka haye meeqa qof baad dishay maalin bad qof saas ku tiri maalin buu qof saas kugu yiri haye mid baan dharbaaxay mid baan maalin saas yiri mid baan saan ku iri waxba uga sheekay sheekadii odaygii isagoo wado dhalinyaradina ay u bogayaan hayeeda lagu hayo odaygii sheekaynayo unbuu aamusay hal mar shib عبار أم بو آمسنا وحيرون halkaa markaan marayo kulaha halkaas waxaa la marayaa markaas meel oo bridge ah agtiisa la marayaa markaan halkaa marayo buu halkaas meeshaas ma u jeedaan oo boondada ah waxaan soo xasuustaa dhalinyarnimadeedii waxyaabihii aan sameyn jiray ficilladii aan sameyn jiray mid kamida oo aad u qaldanaayo ficil qaldan ah hay muxuu ahaa bal nooga sheekay muxuu ahaa ficilka markaad halkan maraysa aad soo xasuustid baa la yiri odaygu wuxuu yiri subaxyada kamid ah anoo magaaladan aan deganahay ka imid sald anoo ka imid oo halkan maraya intaanan halkan soo gaarin wuxuu magaalada markaan saas uga soo baxayay baa magaalada koonaheeda meeshan yani basaska laga soo raaco yaa waxaan arkay nin taagan oo ah dadkan shaqaalaha farsamada gacanta ku shaqeysto wata wixiisi yani uu ku shaqo tagayay baagtiisa alaabta ugu jirtay gacantu ii haatiyay wuxuu yiri waxaan rabaa inaad amaan isii gaarsiiso waxaan yiri haye lacagta maxaan ku qaadayaa 2 shilin haye wuxuu taksiga soo raacay waan soconay intaan amaan bala gaarin markaan halkan marayno yiri bridge-kan unbuu ninkii wuxuu ii soo bixiyay 1 diinaar wuxuu yiri hoo ka gooso lacagtaadii anigu wuxuu marka subaxa waan xanaaqsanaa islaantaydan isku soo xanaaqnay waan soo dilay anigoo xanaaqsan oo buuqayaan guriga ka soo baxay xaaskayga Abu Khaliil baan wuxuu isku soo dhaxnay oo isku soo buuqnay wuxuu yiri waan xanaaqay markaan 1 diinaar ka waxaan ku rimaanaa hadda 1 diinaar 2 shilin ka goosan kara ما مثلا قف $2 lagu leeyahay $100 dhiibay oo kale $200 ka goosay yiri مثلا war wuxuu yiri anu 1 diinaar 2 shilin kama goosan karay 2 qarsh yani wax yar oo 2 bir ah kama goosan karay isi 2 shilin isi wuxuu yiri marka anigu ma hayo 2 shilin halkan diinaar ban hayaa ka gooso lacagtaada baaqigana ii soo celi ma hayo anigu lacag hayo wuxuu yiri marka day dhimal gaariga iska saarnaanayna markaan amaan tagno baan dadka dhahaynaa noo sarif marka meena subaxdan dadku way hurdaan hadda baa la soo kacay yaa rasaaq yaa fatax la leeyahay maxaad mushkiladan iyo dhibkan iyo qaxarkan oo gelinaysaa qaladka adigu ma leeyahay wixii ku istaagay baa qalad leh waxan muxuu ahaa wuxuu ninkii baan caayay marka uu naflagaadiyay ninkii marka halkiisii diinaar buu iska cishaday wuxuu hadaad lacagtaada ka goosanaynin aday ku taala markaan amaan tagno sarif baan raadinaynaa hadaad sarif weydidna ama aad ka gooso ama hadaad ka goosan weydina aday ku jirtaa wuxuu anigu waan xanaaqay marka intaan xanaaqay oo gaarigii istaajiyay baan degtay albaabkan furay waxaan ku iiga soo gaariga qaladka adigu ma lihide ana iskala qaladka markaan u istaagay wax sidan oo maxay oo adoo kale oo kana iiga soo gaarigayga saanam u soo qabtay wuxuu gabigiisa dhulkan soo istaajiyay wuu iswaalo wuxuu yiri marka kama soo degayo gaariga meeshaad iga keentay igu celi ama meeshaad ii wadeen ku soo heshiinay iga seen jidkan cidlada ugu degi maya waa degi jidkaas cidlada waa subax hore bur wadada ciidamo marayso ma degayo ninka gaarigan gali ana wuxuu waan xanaaqo waxaan ku dhim gaarigayga dil leedahay ما يوحي يرتي صماد إسواق قادن سومينا نكون شرينا عمان إجي كم جينيو إيجا بدك بقاريجي ما بكره بابا وحي رنيك وحنقصنا القاريجي نقلي أنا الله مقلي سد ووحي أنا مركا إلين واحد جيب يجي سبب دبعتي مشكلة كسمة يسمى عن هاي قاريجي وحي يسارنا تجربه ربط وهل كان الباب كدروا الكساس مركا الله فرميلي رو جد أحسوا مالي جد كاسن وحي كل ذا نشري بد أو ذا نشري ninka umur ma halkan oo kala taagan oo la gaariga waa inaad meesha adiga qaaday iga soo qaaday igu celi hadii kale meesha ii wada igay meeshan cidlada hadda igu dashis gaari xageen ka helayaad hayo wuxuu doodaya ama budki madaxa kaga bilaabay dhowr jeer markaan ku dhuftay wuxuu dhulka ku dhacay ninkii waan ku celceliyo ku dhuftay ilaa wuxuu 5 jeer markaan ku dhufto ninkii dhulka ku dhacay baan gabigiisiba saas u qaaday wuxuu bridge ka tuurayba
أنا صعد كيوم بس كسيوتي وكأن الشيء لم يكن ده محكمة دي سيبو تجي ماشي مركا ما قرنا إنه محكمة الشقين ترى الشقة دي سي ماشي وسعودي بتجي عالم كي سردين حكا حلي مركو صان نقدين كي وحي ماشي كمو فيرن هؤلاء سيدني يسولي عليه بس كود الشري وينا ذي وطابد كاني أو لبعضن إيه صدق سنة كسوريكتي يقولي هالك مركان مري وحنا صح حسوستايو نبان بريج كان كتوري هيا أذيرو نينكي مردن تايم سوون وليده وحر ما قرنا والله إنه بنطيو إنه دعوة ما إيه إلا قاضي ما قرنا والله ninkii wax ka sheekaynayaba ma arkin gabadhii intay soo booday faatin ahayd bay odayga dhuunta ku dhagtay baa oo gaadhigii wada oo ay tiri waa inaan dilaa qaatilkan waa kii aabahay dilay waa kii agoonta iga dhigay waa inaan ka u kasi naasugnaab odaygii war break qabanaa gaadhiga hana la rogin miyaad waalantay gaadhiga hal istaajiyo wadadii baa laga baxay gabadhii waxay tiri odayga waa inaan ka u kasi odaygii baa laga furfuri waayay hada yaa allah yaa rabbi inta laga furfuray gabadhii gaadhiga laga dajaa dhulka la istaajiyay waxa qabanaya marka ka furfuraya ninkii ahaa Khaliil iyo labadii wiil kale waxay tiri odayga ninka uu ka sheekaynay waa aabahay Sacdi aabahay xilli subax hore gurigeega ka baxay uu shaqo tagay meeshii uu u shaqo tagayeen muuna gaadhin iyo amaan gurigiisina uu ka baxay bridge-kan hoostiisana meedkii laga helay waa ninkan isaga dilay waa inaan ka siiyo markii dambe waxay tiri may odaygan ma dili karee waa inaan booliiska u tagaa gabadhii waxay bilowday marka baabuurta jidka maraysa inuu gacan haadso odaygii iyo gaadhigiisa iskaga degtay ninkii waxay isku day inuu maslaxo dhexdhexaadiye ahaa Khaliil soo shaydaanka iska naar booliis u tagin waxay tiri qaatil ku dhalay aabahay dilay markaas aad ilaa istajiyo shaydaan iska naar booliis u tagin farantigiisii wixii ay qabtay khudubada loogu sameeyay indhaha kaga dhufta waxay tiri qaado farantigaagana balaahay idin guursatay dilayaal baabatiini gabadhii say u sii socotay bas ligi booliiska tagtay waxay tiri ninkii aabahay dilay baan idin hayaatay aabahay baa la dilay 20 sano ka hor kiiskiisa waa la xalin waayay meel baa la iska dhigay kiisaska la xalin waayay baa lagu daray laakiin haddaan helay qofkii aabahay dilay odaygii baa la soo qabtay waxa la yiraahday waxay tiri makhraatiyaal ban haystaa mid kale 3 rag baa gaadhiga ila saarnaa ninkii Khaliil ahaa ee odaygu uu dhalay wuu diiday inuu ku makhraati furo deema aabihii ku makhraati furo ka uu iska aamusay labadii wiil kale waxay yiraahdeen ha sidaas odaygu yiri odaygana wuu qirtay wuxuu yiri waa run xilligaas waan kibirsanaa kibir baasanka iga saarnaa wixii ila hadalaba madaxan ku dhufan jiro gaadhiga xataa bud baa ii saarnaayo intaas oo qof baan dakhray mid baan ili ka rido mid kaasna intaan madaxa bud kaga garaacay ma bridge ka tooro inuu dhintay in kale ma sheegi karo yiri laakiin intaan dilay isagoo suuxsan baan ka tooray bridge kadibna socodkayga ma iska sii watay odaygii waa la xiray gabadhii lawyer bay qabsatay odaygii lawyer buu wiilkiisii u qabtay maxkamad baa la isla galay maxkamadii markii la isla galay waxa la yiri kiiskan waxa ka soo wareegatay 23 sano iyo bilooyin wuuba dhacayba expire date buu noqday kiis dhacaya aan urdun baan ku arkay ajaa'ibatu dunya wadankaasi urdun dhowr jeer baan waxaan arkay arrimo sidan oo kala kiis la leeyahay uu dhacay waqtigiisii wadamada qaar qof waxaad arkaysaa 60 sano ka hor dambi uu galay loo haysto qof waxaad arkaysaa 70 sano ka hor dambi uu galay loo haysto laakiin urdun 20 sano ba kiisku haduu dhaafaa la yiri kiisaska qaar marka ma dhacaan waa qaar kuwa dhaca markuu dambigan qofku geystay qofkii la dilay ama dambiga laga galay xilliga haduu kiiskiisu sidaa ahaa haduu xeer ilaaliyo maxay saasjida xafiiska xeer ilaalinta haduu soo maray hadii xeer ilaalintu maxkamadda u gudbisay haduu yacni nidaamkaas iyo process noocaas haduu maray waxa lagu leeyahay ma dhacayo haduu sidaa ahaana wuu dhacay marka odaygii ahaa Abu Khaliil dambigii loo haystay wuxuu ka mid noqday dambiyada oo dhacay expire ka noqday gabadhii waxa la yiraahdaa aabaha ninkii dilay wuu dilay waa sax in cadaalada la mariyana waa sax laakiin kiiska waqtigiisii baa dheeraaday oo wuu dhacay oo waxba day odaygii laga marabo waa la iska sii daayay ninka calay kulli xaal gabadhii way xanaaqday oo waxay tiri wadanka cadaalada kama jirto miyaa ma ninkii aabahay dilay ee anoo yaro saqiira agoon iga dhigay ee adduunyada aaba la'aan inaan ku noolaado ibaday ee hooyadayoo yar oo dhalinyaro asay u xidhay ee nin dambe xataa aynu guursanin nolosheedii oo dhan ani bas ay igu bixisay waqtigeedii cimrigeedii oo dhan ee dart saas noo galay yacni aniga hooyadayba ma ninkaas adduunyada iska xarawanaya oo iska raaxaysanaya iska wareegaya meelaha ninka ma cadaalad la ii mariyo maya waxa la dhigay dastuurka qodobka intaas wuxuu dhigayaa sharciga maxayga kan qaanuunka wadanka inuu kiiska aabaha dhacay iska raali ahaw gabadhii way qaracantay marka mar walba hooyadeed waxay arki jirtay iyadoo calaacalayso oo ninkii aabahay dilay sidoo isaga xarawanayo magaalada isaga marmaraya cadaalad ma wax ay qabato wadanka maxaa ka qaldan gabadhii ahayd marka Firyaal waxay ka baqday gabadhan oo mar walba calaacalayso aabahay ninkii dilay adeeradeed markay arkaan yani way ka xumaan jireen
waxay istiri gabadhan adeeradeed mid ka mid ah armo intuu dhiigu karo odayga soo dilaaba oo haddana adeerka la xidhaa oo sheekadu sii daba dheeraatay oo aargoosi tagtaa gabadheedii bay waanisay waxay ku tiri aabaha iyo sheekadiisa halkaa ku xidh aabaha soo ma dhimanin ilaahay ha u naxariiso soo dhowr iyo 20 sano ka hor ma ahayn xilligii uu dhintay ninkan kolay uu dhiman doonaa isaguna goor uu dhintaba ilaahay baa xisaabin doona cadaaladda ilaahay baan sugaynaa iska aamus adeeradaasi ayna dambi u galin fidma hadda adu sababteeda aad lahayd si ayna mar kale u dhicin ayr waxay tiri marka iska aamuso sheekada dhan halkaa ku xidh hadduu sharciga waddanku waxba inoo qaban waayo inuu shacbaan wax ma qaban karno gabadhii waxay tiri hay khalaas halkaasaan ku xidhayaa mar walba de salaaday tukataba gabadhii waxay habaari jirtay odayga ilaahayo odayga calaamo ka ifi rabbiyow ha idilin oo adduunyada ha iga oofsan anoon arkin odaygaas oo adduunyada ku silcay ilaahayow odaygaas u qaba ku rid cadaaladii aabahay baa rabaa adduunka inaan ku arko inta aakhira ka horeysa gabadhii say u lahayd waxaa meesha ka baxay marka ninkii khaliil ahay gabadha ay u doonaneed khaliilku gabadha wuxuu u jeclaa si xad ka baxo waali ah saasuu ugu soo korwareegaystaa mar walba waxay ku odhan jirtay markaan ku arko in labada indhood saas kuu saaro waxaan kaa dhex arkaayo ii sawirmaya aabaha guur iyo waxaan aad ka sheekeynaysid ma garanayaan ku dilin oona kaw kaa siinini idhaaf bay ku tiri wuxuu isku dayay inuu sasabo lacag baan ku siin dahab baan ku siin magdhow baan bixin magtii aabaha xataa anaa bixin wax kasta anaa bixin ilaahay baan kugu dhaariyo guurkeennii ha kansalin waxay tiri marka miyaad waalan tahay aabaha baaba aabahay dilay xaseen isu guursan karnaa aniga adigu dee wuxuu aanu dambi ma galin dambigu aabahay galay waan ku baryahay ha igu ciqaabin anigu waxba ma dilin ma jirtay tiri kuma arki karo waxaan ka baqayaa haddaan lacalla ku guursado kow inaan kaa siiyon ku dilo anoo aabaha ciilka aan u qabo adiga inaan kugula dudhacon kaa argoosta adig wiilkii muddo bila markuu gabadhii ka daba wareegayay gabadhiina hooyadeed ay ku tiri aabaha iyo sheekadiisa halkaa kusoo xir adeeradaayayna wax diline ee gabadhii leedahay un ilaahayo odaga calaamo kasoo ifbixi wiilkii khaliil aha muxuu sameeyey intuu kasoo tegay magaaladii camaan ahayd uu ka shaqaynayay mise tii uu deganaabuu ka tegay almuhim intuu socday oo bridgekii tegay wuu iska tuurayba bridgkii wiilkii wuxuu yiri waaban dhimanayaaba ani hadday ii diiday gabadhaan jeclaa oo aabahay sababtii ii diiday aabahayna waxba uuna ii qaban karin gabadhiina aan heli waayey waaban dhimanayaaba bridgkii buu iska tuuray wiilkii isagoo meyduma bridgka hoostiisa laga soo helay reerkii dee murug wiilkan la yidhaahdo khaliil wuxuu la dhashay 4 gabdhood iyo khaliil buu odaygu dhalay odayga saahid buu u murugooday wiilkaygii kali ahaayeen dhalay bridgkaa ninka ka tuuray buu iska tuuray uqubadii ninkii baa igu dhacday siduu u lahaay u calaacalayay muddo ilaa 3 bilood marka la joogo barta bridgkii isagoo marayo odaygiina shil galay isagii de iyo macal gaadhigiisa waxay ka dhaceen bridgkii isagii oon dhimanin laakiin dee dhaawac halis oo meel kasta ka jajaban oo tacbaan oo sakaraada waxaa laga qaaday meeshii isbitaalkii baa la geeyey waxaa lagu yidhi maxaa kugu dhacay seed ahayd markaad shilka galaysa dad baa waxay yidhaahdeen kas buu shilka isu geliyey oo meesha si kasuu isaga tuuray maadaama wiilkiisii kali ahaa uu waayey uu murugoonay isaguna go'aansaday inuu isdilay isagu laakiin wuxuu aanu isma dilaynine bartan bridgeka markaan marayaan soo xasuustay buu wiilkaygii iyo sababta uu wiilkayga isu dilay iyo ninkii aan dilay ee bridgeka ka tuuray wiilkaygu gabadhii uu jeclaa inuu waayey sababtay waxaasoo dhan inay u dhaceen wuu fikiray marka suu u fikirayay wuu baxayba isaga dhan wadadii highwaygu haystay buu ka baxay bridgekii dhan buu ka boodayba isagii gaadhigiisii malaha xawaaradii xadka baxuu ku socday darbiyadii wuxuu ku dhacay bridgeka darbi buu ku dhacay gaadhigii kor buu wada wuu gadoomay wuu sii kala gadoomay khalaas gaadhigiina dee wuxuu noqday diginta wuu burburay odaygiina wuu burburay muddo yar dhowr beri isbitaalka ku jiray wuu dhintay odaygiina wax dee aana dhamayn xataa 5 bilood 4 bilood u meelahaas ahayd xilligii gabadhu ay ogaatay aabaheed inuu odaygana dilay bil kadib khaliil baa bridgeka iska tuuray 3 bilood kadibna odaygii baa isla bridgeka intuu shil ku galay buu ku dhintay qisadii waxay noqotay marka qiso cajiiba waxayna noqotay qisooyinka loo duwaan galiyay qisooyinka oo la yiraahdo yacni qisas min cadaala ilaahiya qisooyinka cadaaladda ilaahay ay ka soo ifbaxday ifka lagu arkay yacni qof walba muslim wuxuu aaminsan yahay qofkii dulmiya qofkii dib u geysta adduunyada hadduu cadaalad ku waayo aakhire inuu cadaalad ku heliyo ilaahay uu isagii qofka u kala garqaadayo maalinka qiyaamaha dadka qaar baa cadaaladooda ifka ku helaba marka oo ifka lagu tusiyaaba cadaaladii intaan aakhiraba la isla gaadhin reerkaas oo kala kamid ah odayga wiilkiisii baa isdilay murug iyo dhibaato isagoo dareemayo isla bridgekii uu odayga ninka miskiinka ka tuuray isagoo mariyo isagiina isla bridgeka shil ku galay markii la yidhi odaygiina bridgekii buu iska tuuray isagii macal gaadhigiisii wuxuu yidhi maya iskama tuurine laakiin waan fikirayay gaadhiguna xawaare xadka buuxuu ku socday kadib saasaan bridgeka uga dhacay buu yidhi reerkii dhannaa gabdhihii hooyadoodun baa soo hadhay dee odaygii iyo wiilkiisiiba bridgekii bay ku dhinteen uu ninka miskiinka ka tuuray gabadhii faatin ahayd
markuu khaliilkii dhintay dhowr bilood kadibna odaygii dhintay khalaas waxay tiri cadaaladdan raadinayay waaban helayba waddanku waxbuu ii qaban waayay ilaahay baa wax ii qabtay waa qiso cajiiba wallaahi bilaahi runtii odaygan 23 sano ka hor intuu qof dilay isagu 23 sano kadib iska shafay ilaaha awoodaloon baa ka hadlinay gabadhan iyo wiilkan isku magaalay degan yihiin mid walba waxbuu soo bartay jaamacad bay soo dhameysay u soo socdeen ilaaha awoodali isku meel bu shaqo ka siiyay haddana waa la isbartay waa la isjeclaaday isku tagsi baa la raacay waa la isguursanayaa bal iyagoon wali isguursano isu doonan unbuu odaygani intuu islaam marna isfaani marna wiilkaaga faani wiilkaygu iga fiican yahay anuu markaan isaga la ekaa dadkan dili jiray balaayaan samayn jiray halkan aan ka boodi jiray biriishkan qof ka tuuray kulaha biriishkan qof ka tuuray diba waxay ku noqotay marka masiibo gabadhiina de waxay ka bogsatay su'aashii mar walba ay isweydiinaysay ahayd talo aabaha maxaa loo dilay talo aabaha yaa dilay aabaha dambigu galay iyo wuxuu galabsaday loo dilay maxay ahayd su'aashii way ka bogsato jawaabteedii way heshay halka markay maraysa sheekadu muuqaalka like bala saara janalkana subscribe videogana waa la share gareeyaa commentiga khafiifka latiifka hal iyo laba wixii ra'yigiina qaybta hoose faalada noogu reebay insha Allah haddaad nala soo bilaabateen oo halkan nala soo gaadheen samirkiina jannada ku gali doontaan insha Allah fa amaanillah ma'a salaama